kacdoonadii ugu waaweynaa isla markaana ugu adkaa ayaa laga filayaa inay ka qarxaan wadamada Yurub kadib markii ay soo tartay cawaaqib xumada ka dhalatay cunaqabataynta dhaqaale ee xoogan ee wadamadaasi ku soo rogeen wadanka Ruushka balse qiimihii ugu sareysay kula kicisay nolosha muwaadiniinta reer Yurub iyo sii socoshada dhaqaalaha lixaad kale ee wadamada reer Yurub ay u dirayaan Ukraine taasoo ay sii dheer tahay shaqo la'aanta baasan sicir bararka kor u sii kacaya iyo carada buuxisay dadka reer Yurub iyadoo markan laga baqayo in dawladaha dhinaca biixda u janjeera ee reer Yurub ay gabagabowday maalmahoodii isla markaana ay bilaabatay ayaamihii ugu adkaa marka ugu horeysa dawada ku soo dhawaada barnaamijkeena warwareyn oo aad ku maqli doontaan qodob kale oo xalan sanad ayuu ku sii siqayaa barbilowga dagaalkii xooganaa ee wadanka Russia uu ku bilaabay Ukraine horaantii sanadkan bishii February ayaa ciidamo jarmaadsan oo ka socda cutubiyada kala duwan ee ciidanka qalabka sida ee wadankaasi Russia waxay weerar ba'an dhinaca bari kaga soo qaadeen wadanka Ukraine tan iyo intaasna waxa wali sii soconaya burburka baahsan ee wadankaasi Ukraine ay ku hayaan diyaaradaha dagaalka iyo gantaalaha kale ee sawaariikhda casriga ah ee wadanka Russia shalay ayay ahayd markii saddexaad ama afraad ee gantaalaha nooca hypersonic uu la dhacay madaxweynaha dalka Russia kaabayaasha dhaqaalaha waxa ka haray ee wadanka Ukraine taa waxa sii dheer in madaxweynaha dalka Russia la ogaaday hanaan cusub iyo qoonda la yaab leh oo u sameeyay habka looga hortagayo hubka casriga ah ee ka imaanaya dalalka reer Yurub iyo ka Mareykanka uu kamid yahay reer galbeedka hubkooda ayuu ku sifeeyay isla markaana uu ku calaamadiyay inuu yahay hub aad halis ugu ah jiritaanka amniga qaranka ee wadanka Russia isagoo amar ku bixiyay in ciidamada qalabka sida wadankiisu ay beegsadaan goob kasta iyo meel kasta oo la keeno hubkaasi warwareyn dhab ah oo laga helay Moscow ayaa xaqiijinaysa in madaxweynaha dalka Ruushka uu sidoo kale faray ciidamadiisa kala duwan iyo qaybta qaabilsan la socodka basaasnimada inay keenaan judhaba xogta agabka military ee ka soo jiijeelay wadamada reer galbeedka kaasoo laga soo walwaalayo dhinaca galbeed ee xuduudaha wadanku uu la wadaago dalalka reer Yurub kadibna intaan la isku xidhin baa laga taqaluso laguna burburiyo isla goobtaasi hadii ayaa dawladda dalka Russia waxay sheegtay inay burburisay agab military iyo gawaadhi sidii kuwaas ay lahaayeen reer galbeedku waxaana tan daba socotaa toddobaadkii hore kadib markii war qoraal oo ka soo baxay waaxda Pentagon ee dalka Mareykanka lagu sheegay in gantaalaha difaaca la calmaday ee wadanka Mareykanka ku furay yareystay Patriot lagu hubin doono xukuumadda Kiev haddaba maanta ayaa wasiirka koobaad ee wadanka Britain Nicola Rishi Sunak wuxuu ku dhawaaqay in 304 milyan oo dollar oo hor leh oo dhaqaale iyo isugu jira mid hub loogu gadayo wadanka Ukraine loogu deeqi doono taa waxa sii dheer in ay wadamada kale oo dhan ayaguna ay si teelteela mar walba ay bil walba u soo saarayaan orahayo iyo hadallo muujinaya inay wali niyad fiican u hayaan taageerista iyo baritaarista waxa loo yaqaan Ukraine tagaha dhulka ku haysa iyo madaxweynahooda yar ee markaasi diiday inuu isdhiibo kaasoo ka dagaalamaya goob kasta oo wadankiisa ka tirsan shalay ay ahayd markay soo taxeen ilaa 8 magaalo oo gabi ahaanba ay rusheeyeen ciidamada dalka Russia kuwaas ay burburiyeen haddaba wadamada reer Yurub ayaa tani waxay ugu kacaysaa qiimo aad u sareeya kolka koobaad Yurub waxa ka sii socda sicir bararka xoogan korontada qaaliyoobasa nolosha sii xumaanaysa iyo wax kasta oo ku aadan nolosha dadka baaba'asa bangiga dhexe ee European Central Bank loo yaqaan ayaa dhawaan caabiyay waxa uu ugu yeeray kor u qaadista lacagta dulsaarka interest rate taasoo ay ugu jeedadeeda ku tilmaameen inay doonayaan inay ku xaqiijiyaan dhimista iyo is-hortaagga sicirka bararaya cuntooyinka guryaha iyo agabka tabarta balse taasi waxba ogama tarin isla markaana wali waxa sii socda mudaharaadada ay ka sameynayaan magaalooyinka iyo wadamada waaweyn muwaadiniinta Europeanku laga soo bilaabo dalka Britain ilaa iyo wadamada kale ee bartamaha iyo waqooyiga Yurub oo dhan waxa ka soo jiijeelay mudaharaado ay sameynayaan cid walba dalkan Britain 300 milyan ku dhawaaqay in Ukraine lagu taageerayo dhawaan ayay diideen inay heshiis ay la saxiixdaan ururka shaqaalaha ee ugu weyn wadanka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya goobaha tareemada iyo goobaha caafimaadka iyo kuwa kale dudamiska iyo baabuurta gargaarka degdega ee dowliyada loo yaqaan dadka wada waxayna bedelkii door bideen inay diyaariyaan militariga wadanka inuu qabto shaqooyinka ay ka gadoodeen dadka shaqaalaha ah ee iyagu gurnadoonka taa waxa sii dheer dalka Jarmalka ruuxankii ugu weyn ayaa ka taagan waxa la filayaa in ku dhawaad 20,000 oo ganacsi ay albabada loo sugu dhufto horaanta sanadkan 2023 taa waxa iyaduna ka sii daran wadanka Belgium oo iyaguna dadku ay soo ooteen iyagoo shaqaalaha
garoomada iyo kuwa kale ee gaadiidka dadweynuhu ay goorsii horeysayba ay shaqooyinka joojiyeen iyagoo sheegay in waxa ay ka shaqeynayaan iyo waxa ku baxaya noloshooda ay kala badan yihiin. Faransiiska isagu gabadhacleynaya dalkuna mar hore ayuu wuxuu bilaabay barnaamijka loo yaqaan gunti dhuuqsiga dhinaca ilaalinta iyo tashiilka shidaalka. dalka Faransiiska wasiirka tabarta ayaa goorsii wareysay muwaadiniinta u sheegay in lagu jiro maalmihii ugu xumaa ee wadanka soo food saaratan iyo dagaalkii labaad ee dunida. taa waxaa sii dheer wadamada kale waqooyiga oo iyagu kuwa ugu dhaqaalaha fiicnaa lahaa Scandinavian-kuna ka mid yihiin qaaradda Yurub oo iyaguna gilgilanaya isla markaana ay u muuqato in iyagana maalmo fool xulay ku soo wajahan yihiin. waxaas oo dhan marka la isku soo duuduubo qaaradda Yurub ayaa waxaa ka soo jiijeelay in ay kor u soo bixi doonaan xisbiyada midigta fog. waxaa jira wax loo yaqaan xisbiyada midigta dhexe, kuwa midigta fog iyo kuwa bidixda dhexe iyo kuwa bidixda fog. waxaa loola jeedaa mabaadi'da ay kala aaminsan yihiin xisbiyadaasi. xisbiga midigta fog waa xisbiyada danquufka aaminsan gooni-goosadka iyo sidoo kale in wadan kasta uu dantiisa kala yaqaansado balse uusan ku dardarsan dalalka kale isla markaana aysan ku lug yeelan dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee loo yaqaano is-atooreynta ay sameeyaan wadamada qaarkood oo Mareykanku hogaanka u wado. xisbiyadaas haday soo kacaan waxay dan weyn ugu jiraysaa madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin oo waayo Yurub way kala gogo'i doontaa isla markaana waxay noqon doontaa fardi yar oo uu wala dhiil gareeyo ama ula tacaamulo mid iyagoo ah isla markaana waxa u sahlanaanaysa inuu kala xado dabadeedna midba marka taqaluso. taasi waxaa wali garab socda mawjadaha waaweyn ay sameynayaan xisbiyada midigta xisbiyada loo yaqaan midigta dhexe iyo xisbiyada bidixda dhexe. labadaasi qoloba waxay aaminsan yihiin in wali la isku sii hayo kudlada ballaaran ee reer galbeedka oo ay kamid tahay gaashaanbuurta NATO, EU ama European Union oo Mareykanku oday u yahay. dhamaantood waxay aaminsan yihiin in haddii la kala furfurmo oo gaashaanbuurta NATO kala daadato European-kuna ay kala lexleexdaan in ay taas noqon doonto sheekadii afartii dibi iyo libaaxa ee inta badan sheekooyinka carabta laga sheegi jiray. balse dhibaatada haysata xisbiyada hadeerta talada inta badan u badan ee wadamada reer Yurub waxa weeye sidee ayay xeego noqota ilkana isugu u badbaadaan. waa ta koobaad ma waxay marka u horeysa xaqiijiyaan dhaqaalaha dadkooda oo ayada ay diiradda saaraan nolosha dadkooda ee baaba'aysa iyo waliba soo oodashada dhinaca saboolnimada Yurub ee kor u kacaysa ayay xaqiijiyaan oo ay wax ka taraan ama se waxay difaacaan waxay u yaqaanaan mabaadi'da dimuqraadiyadda iyo madax banaanida oo Ukraine ayay ku daba faylaan isla markaana u diraan waxoogaa lacaga oo iskaga caabiso ciidamada xibraha ee Vladimir Putin. dalka Qatar warmurtiyeed maanta ka soo baxay oo loogu jawaabayay hadal ka soo yeeray xarunta midowga Yurub ay ku leeyihiin ee Belgium. dawladdaasi gaar ahaan dacwada ogaha guud ee dalkaasi Belgium oo sheegay in baaritaan lagu sameeyo doono cilaaqaadka kharbudmay ee yiraahdeen dhexmaray dawladda yar Qatar iyo baarlamaanka Yurub ayaa waxa ku jiray oraah la yaab leh oo Qatar ay muujinaysay in Mareykan ay xaqiijinayso isla markaana ay dhaqayso meesha laga hayo European. waxay tiri baaritaan kasta oo ka dhana dawladda Qatar oo lagu faragelinayo isla markaana lagu cadaadinayo waxay lid ku tahay si socoshada wada shaqeynta arrimaha tabarta ee adduunka iyo ka hortagga saboolnimada. waxay arrintaas iska cadeyd inay Qatar ay farta ku fiiqayso in qaramada Yurub ay yihiin kuwa sabooloobaya soo oodanaya dadkoodina ee marba marka dambaysa ka daadanayaan salaanka dhaqaalaha hoosna ugu dhacayaan salaanka saboolnimada iyo hooseynta nolosha aadanaha. Yurub inta badan waxaa marka horeba la ogaa in dawladuhu iyagu ay lacag haystaan oo dad ahaan reer Yurub ma laha maalqabeeno tirabeela sida Mareykanka oo kale. dawladaha Yurub oo dhan marka la isku daro iyo dadka maalqabeenada ah ee Mareykanka waxaa lacag badan dadka maalqabeenada ah ee Mareykanka ee iyagu madax bannaan. taasi waa ta keenta in dawladda dalka Mareykanku iyadoo ay ku tiirsan tahay cashuur bixiyaasha oo loola jeedo inay dadka cashuurta ka qaadato dhaqaaluhuna ay dadka gacanta ku hayaan. laakiin Yurub waa cagsiga oo inta badan Yurub dawladaha ayaa dhaqaalaha gacanta ku haya ayagaana sareeya oo gacan sareeya. taasina waa ta hadeertay Yurub afka ku soo kala qabatay kana dhigtay gabi ahaanba in ay meel walba ay ka dalooshanto qaaradu dhaqaale ahaan oo Ruushku markii uu xidhay isla markaana uu adkeeyay shidaalkiisii qarxiyay tuumbooyinkii waaweynaa ee badda Mediterranean-ka iyo tan Paxida intay xulaan geejiray wadamadaasi reer Yurub shidaalka isla markaana la qarbaday qaar la dumiyay in ay waxay sameeyaan garan waayeen. hadeerto badaha reer Yurub waxaa tuman maraakiib ayagu doonaya inay cushiimaystaan shidaalka saaran oo waxay doonayaan markay arrintu dhanaanaato qabowguna uu sii xumaado in ay qiimo laba jibaara kaga gadaan dawladaha shidaalka. waxaa taasi dheer in shirkadaha yaryar ama waxa loo yaqaan ganacsiyada small business-ka gabi ahaantoodba ay goorsii horeysay albaabada la isugu dhuftay kadib markay tahli waayeen inay iska dhiibaan kirada korontada ku qaaliyooday. haatan Yurub waxay qarka u saaran tahay in kacdoon dadweyne ka dhaco
dadka cadaanka ah inta badan ma qaataan khaladaadka waaweyn ee dawladuhu sida kasmada u galaan waana ta keenta mar walba inaad maqasho fadeexado ayaa dawlad lagu helay ka danweysa casiishi taasi waxa ka dhasha kacdoomo waaweyn maadaama codka iyo awoodu gacanta ugu jirto muwaadiniinta reer Yurub waxaa la filayaa tan inay u noqoto kansha ballaaran oo ay kor ugu soo kacaan xisbiyada mowqifyada adag aaminsan dhammaantoodna ka soo horjeeda waxa loo yaqaano kapitalismka iyo adduun hal meel looga taliyo amaanaan